bayaanka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka dalka. bayaanka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka dalka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wassalaatu wassalaamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin. dalladaha culimada Soomaaliyeed oo shir ku yeeshay 12 Shawaal 1442 Hijriya oo ku beegan 24 May 2021 Hotel Afrique ee magaalada Muqdisho ayaga oo falanqeeyay muhiimadda ay leedahay in si degdeg ah looga heshiiyo arrimaha doorashooyinka oo saldhig u ah xasilinta dalka. haddaba culimada Soomaaliyeed ayaga oo ka duulaya mas'uuliyadda Ilaahay saaray culimada ee ah ilaalinta diinta iyo masaalixda guud ee ummadda, ayaga oo xasuusan amarka Eebbe ee nafaray midnimada iyo islaaxinta, isla markaasna maanka ku haya cawaaqibta xun ee aakhiro iyo adduunba ka dhalan karta tafaraaruqa iyo heshiis la'aanta, ayaga oo garawsan in heshiiska madaxda fure u yahay horu socodka dawladnimo, xoojinta maqaasidda diinta, nabadgelyada, fidinta adeega, arrimahaas dhammaantood oo habac galay markii lagu heshiin waayay masiirka ummadda, dalkuna uu qarka u saarmay fidno iyo colaado hor leh. ayaga oo tixgelinaya duruufaha amni, dhaqaale, xanuunada faafa sida COVID-19, fatahaadaha, colaadaha qabiil, tacdiyada ku dhacaya qaybaha nugul, waxa ay hoosta ka xariiqayaan arrimaha soo socda. waxa ay bogaadinayaan soona dhaweynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble, waxayna Rabbi uga baryayaan inuu shirku guulaysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed u aydo kuna faraxdo. lambar 2, waxa ay culimadu xasuusinayaan madaxda siyaasadda ammaanada culus ee cirka, dhulka iyo buuruhuba diideen ee Rabbi u dhiibay iyo xadiiskii rasuulka ee ahaa: Ilaahayow, ruuxii maamula wax ka mid ah arrimaha ummadayda ee dhiba asagana dhib, ruuxiisa maamula ee u tura Ilaahayow asagana u tur. xadiiskaasi saxiix Muslim buu ku jiraa. 3, waxay adkaynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lagu saleeyo qiyamka diinteenna suuban sida cadaaladda, hufnaanta, lagana fogeeyo dhammaan nooc kasta uu yahay dulmiga iyo musuqmaasuqa. lambar 4, waxay culimadu ugu baaqayaan ummadda Soomaaliyeed midnimo, una mahadcelinayaan cid kasta oo gacan ka geysata hirgelinta shirka. Wabillaahi tawfiiq. mahadsanidin.